wafdigana uu hogaaminayo gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada Somaliland mudane Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo uu helinayo gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhawrista tayada Somaliland Cabdiwaasix Maxamed Yuusuf iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'addaasi ayaa safar shaqo ay ku marayaan gobolada galbeedka Somaliland ku gaaray magaalada Saylac ee xarunta gobolka Selen waxaana halkaasi si ballaaran ugu soo dhaweeyay maamulka gobolka iyo ka kastamka magaalada Saylac ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha hay'adda dhawrista tayada gobolka Selen gudoomiyaha gobolka Selen Mawlid Maxamed Nuur maamulaha kastamka magaalada Saylac iyo gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhawrista tayada Somaliland Cabdiwaasix Maxamed Yuusuf waxaana hadaladoodii ka mid ahaa anigoo ku hadlay magacayga gaarka iyo magaca hay'adda tayada dhawrka Jamhuuriyadda Somaliland ahna iskuduwihii gobolka Selen waxaan halkan maanta marti sharaf noo ah gudoomiyaha hay'adda tayada dhawrka Jamhuuriyadda Somaliland waxaan leenahay mudane gudoomiye ku soo dhawow waxaan hadda ku sugannahay kastamkii Saylac oo hadda process ay ka socoto la arag gudoomiye mar labaad welcome ayaan ku leenahay gudoomiyaha iyo agaasimayaasha la socda iyo wafdigaba waxaan leenahay soo dhawaada waxaan soo dhaweynaa kastamkii Saylac waa aragtaana shaqadu way socotaa sanadkan shaqadu sidii hore way nagu yarayd Chinese xanuun ku dhacay awgii inkay soo bilaamatay xafiisyadii waa kuwan halkan oo barxada wax lagu cashuuro hay'adda tayada dhawrka iyo cidii nagala joogta muddadan dambe dardar wanaagsan iyo si wanaagsan oo hawlkarnimo ah waan u wada shaqeynaa marka hore meydaan way yaraydii shaqada halkan ee hay'adda tayada dhawrku iminka si wanaagsan baan u wada shaqeynaa marka examka la galo waxyaabaha karatoonka iyo kawyowga iyo maryabaha ma wixii amba la kuwiira amba dawaa amba alaabaha ee dalkeena wuxuu soo jiiday xumaan amba expire amba dheedkoodu dhow yahay waanu isla eegnaa sida khudradaha oo kale dawooyinka oo kale waxyaabaha creamyada oo kale markaan isla eegno ee ay hay'addu soo fasaxdo ay eegto dheedkeeda iyo nooceeda iyo tayadeeda iyo halka lagu sameeyay iyo warqadda shahaadadeeda ayaanu anaguna hawlaha ayaga ka qabsanaa si wanaagsan baan u wada shaqeynaa waanaanu aad iyo aadna waan idinku mahad celinaynaa waqtigoo gaaban kulli hadalkeedna gaaban waana socotaan waxaanu jeclaan lahayn idinkoo caawi nala joogo Britol naga amba baxa alxamdulillaah rabbil caalamiin waan soo dhaweynaa aad iyo aad waanaan fiican shaqadeeduna way fiican mahadle suura geliyay waftigu hogaaminaya walaalkeen Muuse gudoomiyaha hay'adda quality controlka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo gudoomiyaha ku-xigeenka iyo agaasimaha waaxda kastamada waxaa la dileena horta gobolkii Selen ku soo dhawaada mar labaad haddana degmadii Saylac ku soo dhawaada mar saddexaad kastankii Saylac oo imika dhex taaganahay oo shaqo ka socoto ku soo dhawaada intii waan ku faraxsanahay inaad taraagaal dheer soo gashaan sidii hawlaha qaranka haysaan ay soo taaban lahaydeen xaqiiqda iyo dhabta jirta dalka gudaheeda maadaama ay hay'adani tahay hay'adaha qaranka ugu miisaanka culus leh badbaadiso qofka bini'aadanka naftiisa maadaama qofkii wixii dhibaato naftiisa gaarsiinay laga ilaalinayo ama climate-kii wixii dhibaato gaarsiinay laga ilaalinayo waxaan ku faraxsanahay in hay'adaasi gobolkan timaado gobolkani saddex xuduudood buu leeyahay Ethiopia iyo Djibouti iyo Yemen saddexdaa xuduudoodba dalka waxay ka soo galaan hay'adana waxay u tahay lafdhabar marka waxaan dileenahay mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhawaada gobolkii Selen aad baan gudoomiye ugu faraxsanahay ilaa ma afartii xalay ilaa ma imika ina u soo socoteen sida u soo gaari lahaydeen magaalada Saylac ilaahayna waa idin naba keenay shaqadana hore nagu sii socon doonaa wixii kale inoo dhiman aad iyo aad baan mahadsantiin ku soo dhawaada bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدشنا نمان تقصبنا هاي وجوبل كسلل عاصمة دي سي وأسيلع وحنا كل من وفتي آذو علوس ونه جامنيو قدوميها هيدا دورست هيدا موسى حسن يوسف وحنا يسوون الجوه اللي برسها كقبلك مولد يستدوها ما تخنا قبلك هيدا دورست هيدا يا قدوميها كستم كمالية يا قدوميها كستم كهيدا دورست هيدا طيب يعني وحنا قلنا مني يعني ما دام سنة كل عسباوية هي دردر قليلة شقادة يصير وصعته إن شاء الله وحنا مرينا إلا لو يعدان وتجينا يعني أكتيف تجي حولها اللقابنا يصير وحلا عشورة يا نظامية يصير وحول بعوص عدان أنا وقيبت عنه كلنا إن أنه أجنو في قبك عنتذا دووينك
kasoo gala dalalka aanu jaarka nahay haddii noqoto Djibouti haddii noqoto mataqaanaa Ethiopia iyo dalka kale mataqaanaa xeebta aanu la jaarka nahay ee Yamanta kulley anigu inta badan waxaan u diin doonaa gudoomiyaha ayaa warkoo faahfaahsan siin doona ugu dambeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada Soomaaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada socdaalkooda alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah barasaabka gobolka madaxa kastamka ee Saylac iyo marti sharafta kale nagu soo dhaweysay halkan heer gobol iyo heer degmaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay khayreed ka siiyo ilaa iyo saakadna sugayseen farxad weyn bay noo tahay aniga iyo gudoomiye ku-xigeenkii iyo madaxa kastamka inaanu ka nimaadno xaruntii Hargeysa hay'adda tayada waanu maanta soo gaarno gobolka Salal farxad weyn bay noo tahay muhiimad weynna uu noogu fadhiyaa gobolka Salal maadaama uu yahay meel muhiim ah oo saddex saddex xuduud ay wax ka soo galaan waxaanu ujeedadeeduna waxay inaan kormeer ku soo marno inaanu soo xoojino wada shaqaynta laamaha dawladda iyo hay'adda xoojinta shaqadii hay'adda oo aanu rajeynayno insha Allah wixii naga qabiya inaanu si dhakhso ah soo dhameystirno haday shaqaale tahay haday qalabkii lagu shaqeynayay tahay waxaanu diyaar u nahay inaanu si buuxda waajibka qaranka aanu u gudano idinkana waxaan idinka mahad celinayaa sida quruxda badan ee aad noo soo dhaweyseen waxaan idinka mahad celinaynaa gacansiinta weyn ee aad xafiiska yagan hay'adda gobolkan aad siisaan waxaan rajeynaynaa inaan inta ka sii kordhino insha Allah si aan ugu adeeg